E allora posso dire che questo è l'augurio per tutti i fratelli della Somalia per un grande futuro per Dabishil. duqa degmada Tower Hamlet Consular Ahmed Aadan ayaa markii ugu horeysay guddoonsiiyey abaalmarin caalami ah isagoo ka wakiil ah degmada uu duqa u yahay waxaana abaalmarintaas la guddoonsiiyey madaxa guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Ducaale iyadoo munaasabadana ay goobjoog ka ahaayeen dhammaan shaqaalaha Dahabshiil ee xarunta dhexe ee dalkan UK aniga oo meeyarkii xaafadda ah waxaan aad iyo aad ugu qiimeynayaa ururka qiimaha uu maanta xaafadda noogu leeyahay sidaa daraadeed waxay igu kaliftay inaan keeno the Borough Crest oo aan ugu mahadnaqo the chief executive ka maamulka uu ururka maamulayay aad baad u mahadsantahay chief maayar sharaf bay noo tahay aad ugu faraxsanahay runtii inaad waqtigaaga iyo casiiska aad noogu timi maayarku wuxuu sheegay runtii inay Tower Hamlet ahayd halkii shirkadu ka bilaabantay UK runtii waa xaqiiq sida uu maayarku sheegay weeyaan Tower Hamlet bay ahayd maantana 200 oo laamood ilaahay mahadii bay ku leedahay Ingiriiska qasab caalamka magaaladii laga soo bilaabay waa la garanayaa guud ahaan shirkadda oo iyaduna maanta ay marayso 155 wadan oo caalamka oo dhan runtii ku yaala dhanka kalena madaxa shirkadda Dahabshiil ayaa isna shahaado sharaf guddoonsiiyey mudane Axmed Aadan oo isagu ah duqa degmada Tower Hamlet sidoo kale duqa degmada ayaa laga codsaday in shahaado sharaftii iyana loogu talagalay shaqaalaha Dahabshiil oo si xawli ah uga shaqeeya bulshada in isagana uu guddoonsiiyo haddaba shaqaalaha ayaa dhammaantooda helay mudnaantaasi iyo dadaalka ay u geysteen hawsha ay u hayeen shirkadda Dahabshiil iyo adeega macaamiisha sidaad arkaysaan dadkan iga dambeeya waa dhammaantooda shaqaalaha Dahabshiil waxaana ku suganahay xarunta dhexe ee Dahabshiil iyadoo ku taala bariga magaalada London halkan waxa iga muuqda duqa degmada Tower Hamlet iyo waliba mas'uulka ugu sareeya shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid shaqaalaha aad u riyaaqsan oo dhammaantooda haystay shahaado sharaftii la guddoonsiiyey maadaama shirkadda Dahabshiil xarunteeda dhexe ay ku taalo degmadan Tower Hamlet ayaa waxa duqa degmadan Tower Hamlet Consular Ahmed Umar isagu uu guddoonsiiyey isagoo waliba wakiilka ah degmada biladan amaba abaalmarintan oo si gooniyahana u siiyey maamulka ugu sareeya Dahabshiil mudane Cabdirashiid waxaana maamulka uu ii sheegay in hawshooda ay si aad ah u sii wadi doonaan iyagoo waliba adeega bulshadana si gooniyaha ula shaqeeya amba ay ka geystaan dadka dhibaataysan inay si gooniyaha u caabiyaan Ibrahim Umar Baafe wararka Universal xarunta dhexe Dahabshiil bariga London